آه. warnimay oo soo dhawaada muuqaalkan aad u muhiim u yahay qodobo yar oo muhiim ah inaan ka hadlo asxaabtiin hala gaarsiiyo telegramka iyo cabdilweyne hala booqdo hala soo follow gareeyo telegramkani waxyaabo badan aan kaga hadli doona insha allah qodobada maanta aan ka hadlayo waa qodobo yar oo kooban number one sida lacagta looga soo shubto binansiga looga shubto bully market dad badan baa raba inay xiiseeyaan ka faa'iidaystaan bully market waa qodobka koowaad qodobka labaad lacagaha cusub ee new cryptocurrency-yada habka looga faa'iidaysto hadday noqoto adigoo isticmaalaya PancakeSwap, Uniswap ama waladyadaada kala duwan sida hadda MetaMask oo kale dadka badanaa waxay ku wareereen lacagta markay base kugu jirto sida networkska kale loogu bedelo tusaaloo kaleeto lacagaha cusub networkyo kala duwan ay kasoo baxaan waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo axiamka lacagaha mimcoinyada markii la joogo suuqa markii laga faa'iidaysanayo muuqaal baa ka horeeyey anigoo duubayo muuqaalkaas hala daawado kana koodii horgelin doona kan muuqaal yaroo koobanaa ka dhigi doona kan muuqaal baa ka horeyn doono kaas daawo insha allah so barti two barti one aa ka dhigi doona barti two daawo insha allah maxaa yeelay barti two-ga oo wanka ahayd baa wax badan ku sharaxay anigoo lacag kusoo shubayo bully market sida lacagaha looga sameeyo ayaa lacagtii soo gaari weysa marka kadibna gadaalaa kaga soo shubo mid kaleeto so marka horta kow suuqa guud wuu fiican yahay labo lacaga badan lagama sameeyo waan ognahay boqolka lacageeda ugu horeyso labada boqol ee lacag ee ugu horeyso suuqaani faa'iidada ugu badan badanaa waxay taalaa fiiriya percentage-ka saddexda boqol ee lacag ugu horeyso wixii ka sareeyo shan boqol ilaa lix boqol 6% ay dhaqaaqeen qaarkoodna 4% kun lacagna waxaa waaye 4% iyo wixii kasii badanba soo marka lacagaha badanaa kaalmaha afar boqolaad wixii ka sareeyo ayaa badanaa zaaid u dhaqaaqo dhaqaaq fiican sameeyaan su-aasha meesha taala marka annaga markii maalinle oo qofka uu sameynayo short term investment ama daily ah ama weekly ah micnaheeda keliya kama dhigan inaad tirageranaysid memecoin dadku midaas isku qaldaan memecoinyada waa qayb ka mid ah qasabna maahan inaad memecoin tirageraysid ma fahantay waa qayb ka mid ah laakiin waxaad ka qaraaban kartaa memecoin 1x 2x 3x aa laga raadiya maxaa ula jeedaa faa'iidadeeda inay boqolkiiba inaa mid intaa gelis in lamid ah ka heshid hal laba saddex haddaa boqol door geliso laba boqol saddex boqol haddaa geliso afar boqol haddaa boqol door geliso laba boqol haddaa boqol door geliso laba jeer ku dhaqaaqdo saddex boqol afar boqol 2x 3x 4x laakiin waxaa ka qaraaban kartaa lacagaha cusub hadda lacagahan oo kale waa lacaga new ah so marka sida looga qaraabto muuqaalkii ka horey aan oga duubay so basically dhaqaaq fiican ay samaysa hadda lacagtan oo kale 40 milyan aa kasoo raacnay haddaa muuqaalka ka duubay gruupka ardayda xatir waa la wadaagay way ka faa'iidaysteen labo lacagta blockchain-ka ay ku dhisan tahay haddii ethereum ay ku dhisan tahay uniswap tag metamaskaada ku xiro ethereum kusoo shubo sida loogu shubto muuqaalan ka sameeyey binance ayaa tegeysaa binance markaa dhigtid deposit meesha aad leedahay ayaa ku dhufanaysaa kadib ethereum aad iibsanaysaa haddaadan ethereum haysanin qaybta isbaatkaa tegi kartaa lacag kale haddii lacagtaada kugu jirto comfort aad leedahay tusaaloo kale maxaa ula jeedaa haddii lacagtaada solana kugu jirto comfort aad leedahay ethereum u bedeli kartaa waa haddii lacag kale aad rabtid inaad lacagta kasoo wareejiso tusaaloo kale waxaa kasoo bedeli kartaa lasoo kaleeto waxaa kasoo bedeli kartaa solana haddii lacag kugu jirto ethereum oo kale u wareegsan kartaa whatever aad rabtid oo kale aad u wareegsan kartaa comfort aad dhihi kartaa kadibna waxaa kusoo shubanaysaa waladkaada metamask I hope qodobkaas inaan isla fahanay markii aad iibsanaysid soo marka lacagahani mustaqbalay leeyihiin lacaga waa categoriga ay ku jiraan oo kale waa AI horaan u sheegay waxaa xooga saarayna casharada aan baranayno blockchainada kala duwan different blockchains because waan ognahay suuqa weyn lacag ma lahan lacagahan waa weyn dhaqaaq badan ma sameeyaan lacagaha weyn maxaa ula jeedaa dhaqaaq badan ma sameeyaan tusaaloo kaleeto ethereum intaa lacag gadaalin lahayd waxaa ka raadaysaa lacagaha ethereum ku dhisan solana intaa lacag ka raadin lahayd lacagaha solana ku dhisan blockchainada inaa xooga saarayna maxaa yeelay suuqa weyn maanta haddaa fiirino indhahada ku arag volume haddaa tagno lacagta koowaad ee volume soo gashay USDT waxaan iska dhaaf USDC waa hal dolar isma bedelan waa BTC welina 26 bilyan aa soo dhex martay for the last 24 hours welina dhaqaaq ma sameynin oo dhaqaaq si walba lacag usoo gasho 10x 2x 3x ma noqdaan lacagta ugu fiicnaad hadda waa suwi 1 bilyan ayaa soo dhex martay for the last 24 hours markii laga reebo solana iyo XRP suwi hadda dhaqaaq fiican xadir ma sameyn wiigan waxay sameysay 7% ayay wiigan oo dhan sameysay iyo bishaani
marka lacagahan oo kale investment waa u geli kartaa, laakiin quick money kama samayn kartid. Hadda soddonkii biri ama toddobadii biri lacagta u dhaqaaq fiicneed fartcon oo kale waay. Fartconne already waa lacaga low market cap ah, qeybaha kale aan kasoo galnay. So marka lacagahan sidee uga faa'iidaysan kartaa? Lacagahani waan ka hadalnaa, ardayda waan la wadaagaa, waan la sheergaraya. Muuqaalka ku xiga aad daawan doontaa insha allah. Telegramkiina waa idin soo gelin doonaa. Please ka faa'iidaysta adresska coinka gala, iibsada. Coinakan oo kale qaab looga faa'iidaystaa jiro. Gala new cryptocurrency-yada. Haddii ku dhisantaa Ethereum kusoo shubo walletkaaga, kadib Uniswap baad tegeysaa. Uniswap markaa tagtid, lacagtaada hoos geynaysaa, kadib hataa halkaas copy paste ku leedahay. Copy paste markaa ku dhahdid, lacagta kusoo bixi doonto waa gelinaysaa. Markaa gelisid, lacagta automatically way kusoo baxday. Waa haddaa soo copy garaysid. Tusaale oo kale hadda waxaan soo copy garayn oo kale lacagta ay ku qorantaa prompt. Waa kaasaa waa soo copy garaysay. Kadib kore ku taala whatever aad gelinaysid aad ku iibsanaysaa. Habka liskaga iibina hadda indhahda ku arki doontaa. Lacagaha marka waa lacaga low market cap ah, waqti cusub ayna jiraan. Fiir hadda lacagtan 24 hours ka yari jirtaa. Dadkii ugu horey arkaa ka mid ahayn groupka xataa waa soo geliyay, arday badan way ka faa'iideen. Muuqaalka kale ka daawanaysaa. Sidoo kaleeto lacagta kaleeto aan ka faa'iidnay weegani adiga hadda hadaarti inaad gashado kale tusaale ahaan u arag lacaga cusub inay jiraan. Hadda lacagtan kale 30 biri jirtaa. Waa lacaga cusub oo intaasoo dhaqaaqay samaysay for the last 24 hours intaana samaysay. Xatir waan iibsanay practical ah xatir waa iibi. Waa kan hadday buy aan dhahnay markaa buy dhehaysid adresska copy gareyne base network aad dooranaysaa. So base markaa dooratid halkaas markaa dhahdid base network la bedelaysaa. Base ka leedahay, base ka dhigaysaa. Tusaale kale hadda walletkayga ku xiranaa MetaMask connect leeyahay. Connect markaa dhaho walletkan ku xiri doonaa. Walletka markaa ku xiro networka halkaas ka bedelaysaa. So hadda base oo kale ka dhigan kartaa. Base ka dhiganay coinka soo qaadaysaa, copy paste ku leedahay hadduu base ku dhisan yahay. Copy paste markaa ku dhahdid coinka ku soo bixi doona. Haddaayan iibsana marka haddana qaabka liskaga iibiyaa idin tusin doonaa. So marka coinakan waladeeda looga shaqaystaa. Marka hasku qaldinaha markii suuqa weyn oo tusaalo kala dhaqaaqay investment ku dhaqaaqday. Stock market ku gunis markuu kasoo baxo, stock market casharada waa ka hadli doonaa investmentiga ku dhaqaaqay. Markii tusaalo kala dexiga aan fiirinayno dex screenerka oo aan ku dhufano dexiga oo for the last 24 hours value ha soo dhex maray meme coin aan raadinayna. Laakiin tookadaan project waa meme coin salaana markaa raadinaysa projectiyo iyo meme coin-ka way kala duwan tahay. Meme coin-na waa ka shaqaysan kartaa, waana ka shaqaysanaa, lacagahana waa ka faa'iidnaa. Hadda tusaale kale haddaan u soo qaado tusaale kale lacagta daay 46 ka soo galnay 100 uga baxana 10. Plan B-geena maxaa waay 100 anaa galno 200 300 uga baxano. Read haddaa intusinay 22 ku galnay 44 uga baxano. Plan B-geena 44 to 100 million market cap. So waxaan waxa ku xisaabtamaysaa $46 ma waa 46 million market cap waay. 200 million market cap oo lacagta hadda waxay joogtaa 100 waay. 46 ka soo galna 100 waay. Lacagtani hadda waxay maraysaa Rio kaleeto waxay maraysaa 39. So meesha ka soo galna intay ahayd Rio 22 44 uga baxnay. Hadda way soo daadatay. Blanken maxaa waay 44 inaan ka galno ama hadda inaan galno 120 uga baxno. So marka hadda haddaan fiirino 40 waxay tagtay something 40 plus almost 45 ka ku dhawaatay. So marka hadda qaybta labaad waay 100 in looga baxo. So marka still haddii aad galaysid waad ka faa'iidaysan kartaa, laakiin ardayda zoomka inoo balana. Ardayda zoomka inoo balana. Special groupka noo soo geliyay groupka ardayda isha ku hay labada dhinacbo. Ardayda qaar hadda waxay dhaheen coin ka saan u soo geliyay. Waxaan dhahaa my network 23 ay maraysaa market capka. Update-kan siya ardayda groupka ardayda update-kaas helaan lacagta meesha ay marayso. Mine network isha ku haya hadday marka 10 iyo head. So mine hadda tagan hadda 23 maraysay hadda may qiimaraysaa refresh dhahno market cap kida aragno 23 something ay maraysaa. So waxaan ka soo qabsanay literally market cap kida 9 milyan 15 milyan 10 xogo milyan haddana 23 maraysaa almost 1xy. That means meme coin meter garanaysid short term investment ayaa ka qarabanaysaa. dadka inta ugu badan waxay malayn meme coin kaliya in la sameynayo lacagaha short termka. Meme coin aa jiro, airdrop aa jiro, projectyadan cusub aa jiro, ICO aa jiro, IDO aa jiro, waxaas oo dhan short term ka faa'iidaysanaysaa. Easily 24 hours ki 1x ka helaysaa adoon tar qaadanin risk gelin. Axiomna markaa joogtid lacagaha cusub halay qaraabto. Lacagahan hadda ka qaraabanaysid mar walba fiiri lacagta waxaa fiirisaa dadka holderska top 10ka.
waxaa kaloo fiirisaa deefka inta howlgareyna. Hadda lacagtan oo kale lacag nadiif ah waay. X-keeda ma xumo, 21 saacadood uu dhisan yahay. Website-kooda ma xumo oo X ahaan usoo geliyeen oo Twitter ah. Dadka haysta holderska ma xumo, value ma xumo, market cap-kana ma xumo. Waa fiirin kartaa 17 daqiiqa jirta, dhibaatada jirta taas ah. Dhibka jira waa 17 minute oo wax badan baa ku dhaafay. So marka hala fiiri. Hadda coinkan oo kale Matumba ku qoran, Matumba oo kale 5 qof ku jirto, waa qabsan kartaa. Dheg waa kori kartaa haddii aysan daadanin. Hadda deefku soo garay way daadatay. Haddii markaas dadku ugu horeeya noqotid market capkeed uu ka tago 4,000, hadduu tago 7,000 oo 8,000 hadduu tago 1x. Hadda fiiri wuu soo kacay. Haddii uu ka soo kaco meeshan hadda waxaa ka qabsatay 4k. Haddii 4k uu ka tago dadka holders waa 5 qofood, haddii dad badan soo galaan 4k hadduu ka tago 8k hadduu tago 1x ka heshay. Haddii uu tago 6k waa 50% waay. 6k 50% wax yaraa sugan haddii dad badan soo galaan. Literally 4k 6 hadduu tago waad ka bixaysaa 50% ka qaadatay. Ma fahanteen? So marka hadduu dhintane already stop loss kada dhiganaysaa, sell pressure ka leedahay, sell limit ka waxaa gashanaysaa tusaale kale meesha aad ka gashay meel u dhow kale. Waxaa leedahay meel u dhow kale waxaa leedahay iga sell garee 100%. Then khasaare badan ma gelaysid, stop loss ka kaaga dhacayo. I hope intaas inaa fahanteen. Markii mimkoin la tiragareenayne hala fiiriyo dadka holderska, sniperska, daqiiqada ay jirto Twitterka, lacagta intaada gelin value ha soo galay iyo market capka. Intaas waa muhiim. Lacagaha cusubne at least transactionada inay ku jirto. Hadda lacagtaan oo kale 8 qof ku jiro muxumo kaleeto. Lacagtaan oo kale 8 qof ku jiro sakamada 1 second ka dhigaa. Sakan walbo isbedelkii dhaco ayadoo kaleeto haddii ay dhaqaaqdo is a good. So marka waana risk waa kuwaani ka fogaada. Haddii mimkoin ku adag tahay lacagaha kale ma. Okay, maxaa kaloo fiirinaysaan highlightska hala fiiriyo. Highlightyada lacagaha ku jiro hadda tusaale oo kale ape hadda kulli waa arkay, aniga kulli waa la soconaa. Ape 3 oo kale, Ape 3 oo kale fiirinayna. Ape 3 markaa fiirino ABI 3 ABI 3 ABI 3 oo kale lacag all day waayo. So hadda tan oo kale waqti kuma lumina because anaga lacagaha waqti gelinayno waa lacagaha brand new ah. Lacagahanina waa ka hadlay oo chart kale arkaynin waa soo koobi kareen adresska koobi aa leedahay. Koobi markaa dhahdid getco terminal aad tegaysaa, adresska halkaas aad gelinaysaa, coinka halkaas aad xogtiisa ku soo baxaya. So wax yar coinka waa kana wuu noo soo baxay. So marka coinka haddii xogtiisa aad ka waysid coin getco halkaas aad kala soconaysaa. waxaasoo dhan casharada ku bixiya. Haddaadan weli nagu soo biirin yarka Maxamed la xiriir please kaalay we are number 1 school. Waxa soo socdaa ka badan. Bully market aan tagna marka. Bully market lacagtii qaabka loogu soo shubay deposit waa tagnay. Hadda xataa waxaa ku soo shubi kartaa Solana ahaan ku soo shuban kartaa. Qaabka Solana loogu shubto muuqaalka waan ka sameeyay. Tusaale kale USDC Bullygana marka hore lagu soo shuban jiray. Hadda Solana dooranaysaa to Solana ku soo shubi kartaa. Adresskada koobidhe Phantom walada ka soo shubaysaa. Sidee loogu shaqaystaa marka Bully market? Bully market waa market prediction ah. Elon Musk Twitteradoo sameeyay, inta Twitter oo sameeyay, inta jeer oo hadlo wax walbo Elon Musk ku saabsan halkaas lagala socotaa Twitteradiisa. Sportska anaga waxaan qosay cryptada marka. Cryptada waxaa jira marka wax badan oo ku saabsan crypto. Maxaa kamid ah BTC 18 goorta gaari doonto, bishaana aan ku jirno BTC intay gaari doonto, Solana bisha afraad inta lagu jiro imisay gaari doontaa. Information baa laga helaa. Haddaa rabtidna dadaalka waa ka qayb geli kartaa. So marka haddii aad aaminsan tahay Solana inay gaarayso 190 bishan afraad April inay gaarayso 190 $20 ku tuuri kartaa labadaada boqol ka heshay. Daas micneheedu waxa waaye 10x 10x waa 200 10x waa 13 12x ka heshay 12 lacagtaadii. Haddaa $100 ku duurtid 1400 qaadatay. waa haddii aad aaminsan tahay BTC aan dhihnay Solana ay gaarayso 190. So Twitteradana sidoo kale qasab ma hayna ka qayb gashid laakiin ani macallin maadaama ahay cilmi ahaan ku baraya. Haddii aad aaminsan tahay Elon Musk inuu sameynayo la soo kale intaasoo Twitter la soo kale ani waxa aaminsanahay 300 Twitter inuu sameynayo kale. Haddii aan aaminsanahay 300 Twitter haddii $20 aan ku tuuro labadeeda boqol helo. Buy aan leeyahay buy markaa helo accept dhaha accept markaa dhaho wallet-ka soo bixi doonto. Wallet-ka markaa soo baxdana awowga soo bixi doono. Phantom wallet-kayga password-ka gelinaa. I hope sida loo samaystan inaad taqaanaan. Phantom wallet-kayga password-ka gelinaa. waa accept gareynaa. Haddii Elon Musk uu sameeyo 200 oo 300 oo Twitter hadda 40 oo maraa labadeeda boqol qaadanaa. $20 ku tuuro labadeeda boqol qaadanaa.
haddaa $100 ku tuuri lahay waan $100 baa dhihi lahay 9 aan qaadanaya. So haddaan aaminsanahay inuu sameynayo 300 iyo intaasoo Twitter ilaa 50 oo aan iibsado qaybtaani 1600 aan qaadanaya. So marka casharo badanna waa ka sameyn doonaa habka looga shaqeysto. Haddii uu sameyn waayna dee $20 ay khasaartay. hadduu sameyna dee 200 baan qaadanaya. haddii $100 aan geliyo hadduu sameyn waayo $100 ay khasaartay. hadduu sameyna 1600 aan qaadanaya. So marka prediction market waaye. badanaa dadka aqoonta oo suuqa guud saadaalinta ee ka fiiriya dadka inta ugu badan. I hope qaybtaas inaan isla fahnay. su-aalna aysan ka taagnayn. qaybta waxaan sameeyey ayado akoon cusub baan sameeyey dadka ku wareersan. akoon cusub baan sameeyey oo ah xigmadka. xigmad qayb mo wax youtube xataa u sameeyey. youtube-ka xigmad hala tago videoyaal yararaa soo geliyey laakiin hadda kuwa badan soo gelin doona oo ku saabsan trade-ka iyo investmentiga. bull market akoon cusubaa sameeyey. akoonka markaa sameynayay waxaa ku qoran xigmad hadda traded value waa zero, profit iyo loss waa zero, positionadan waa zero, activity-yadana waa zero, wax walba waa zero 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 waaye. wax trade ma sameynin. lacaga kusoo shubay $9 cashar ahaana u bixinayay deposit markaa dhahayne solaan ahaana usoo geliyey $9 oo sol ahaana usoo geliyey. aad arki doontaan insha allah cashiro live ah oo bull market laga taragareynayo lacag laga sameynayo. hadda ujeedaan idinka markhaati ka waa zero waa wax trade ah iyo wax investment ah iyo wax position ah kuma jiro markii laga reebo $9. all time haddaa fiirino waa zero. bil ka hor haddaa fiirino isbuuc ka hor maantay wax walba waa zero. wax transaction ah orderada waa zero. historygana waa zero. waa arki doontaan youtube-kaana soo gelin doonaa xigmad trade life ah. sidoo kale waxaa arki doontaan fanta molada u sameeyey. sidoo kale waxaad arki doontaan iyo metamask. so marka coinakii waan ka hadlay oo ah qasab maaha miimku inaad tiragelisa lacagaha low market capka ka faa'iideysan kartaa dhaqaaq badanna sameynayo. lacagahana website-kooda la booqdaa projectyada ku dhisan dadka maalgeli hadda lacagtan oo kale wax badanaa ka dambeeya. waxaa ka dambeeyo packed by tusaaloo kale coinbase fungersa maalgashteen. xatir waan ka hadlay muuqaalkii ka horeeyay coinbase portfolioda hala fiiriyo lacagaha ay haystaan coinbase fungers lacaga badan ay haystaan. cfi waa fiirin kartaa, dfi waa fiirin kartaa. projectyo badan halkan ku jiro aa ka qaraaban kartid. linkiga hadda waa copy gareey ardayda waa la wadaaga waa kana groupka ardayda geenaya si ay uga faa'iideystaan. waa geliyey waa u tuuray. labo maxaa kaleeto getco terminalne please waqti hala geliyo. getco terminal haddii lacag aad ku wareertay qaabka loo raadiyo xogteeda getco terminal ka heleysaan. lacaga badan oo waxaa jiro getco terminal ka heleysaan. lacagta tii hadda aan ka hadlawa getco terminal maxaa ka mid ah tusaalo kale lacagtan waxaa ku qoran Nebula AI. Nebula AI wax xogga kama haystid. adreeskeeda copy gareynaysaa getco terminal tagee getco terminal markaa tagtid xogtii dhan asaa ku siinayo. lacagta market capkeeda dadka holderska ah dadka haysto inta maalin ay jirto waa kana Nebula AI wax walba ku saabsan waad helaysaa. chartskii candleskii haddii aad ka weyso xogtaasi coingetco. I hope intaas in isla fahnay. halka lacaga ka faa'iideysanaysaan aadaa idinkula shargaray qofkii risk taker ah stake stone. stake stone waa ka faa'iideysan kartaan. wayna jirtaa 7 biri ka yar bil ka yar jirtaa. hadda marketkeeda waa 21 milyan. easy lacagtan 100 milyan way gaari doontaa haddaysan isbuucan gaarin fridayda soo socoto next week way gaari doontaa. maxaa kaleeto website-kooda xataa waa booqan kartaa qaabka u shaqeyso. my network sidoo kaleeto my network easily waxay gaari doontaa 100 milyan. 3x waa ka heleysaan. trade meme coin maahan easily waa lacag fudud. sidoo kale bam btc ayadane 100 waa gaaraysaa si fudud adoon risk qaadanin halaga faa'iideysto. sidoo kale shaki baa ku jiro maybe 1x inaa ka heshaan 70 milyan market cap inay gaarto. okay lacagihii sidii loo iibsado waa idin tusiyey lacag sida loogala baxaa. haddii metamaskaada ay kugu jirto sida loo seelgaray dadka lacagta loogala baxo ay weydiiyeen lasoo kale waxaa kugu jirto lacagtan oo kale maalin la iibina $40 gelina $90 gaartay sidee iskaga iibinaya. lacagta korkeeda ku dhufanaya korkeeda markaa ku dhufatid swipe baa leedahay. swipe markaa dhahdid kor ayadaa geynaysaa ama waxaa samayn kartaa uniswap baa imaanaysaa. uniswap markaa imaatid waxaa kugu xiran waledkaada kugu xiran ujeedaan waledkaada kugu jirto. soo marka lacagta aad rabtid inaad iska seelgaraysid korkeeda tegaysaa. korkeeda markaa tagtid ayadaa korgeynaysaa. ayada kor markaa geysid maxi aa leedahay. maxi oo ah gilligood
gebigoodba iska seelgaree. max markaa ku dhufano preview ku dhahaa, waxaa seelgaraynaysidne waa lacagta h, waxa aa helaysidna waa ethereum oo base ah. preview aa leeyahay, kadibna accept aa leeyahay. accept markaa dhaho metamaskiga furmaayo, waa accept gareyna. lacagtaasi micnaheeda waa iska seelgareeyey oo way iga baxday. confirm swap, kadibna bam, lacagtaasi way iga baxday. waxaa ii soo hartay lacagtii la oranayay base. basekaa rabaa marka su-aasha kale i weydiiseen, sidee base u qaadi karaa, uga dhigi karaa exchange-gii u geysan karaa. taasaan qaybta labaad ah. waladkii fiirinaa, way iga baxday base ay soo hartay $88. haddii metamaskiga ku dhufto aan labadii dhinac idin tusiyo, waxaa haystaa tokenada ku dhufan activity marabi. bnb hadaa raba iga qari, hadaa raba waa iska qarin karaa. bnb iga qari ama ha iskaga jirto. waxaa rabaa oo kale kasoo qaad, lacagtan waa iska selgaray zero baan haystaa. lacagta kale igu jirto waa rio kale oo hadda aan gelinay aan ka faidnay. sidee marka iskaga seelgarayn karaa? same thing aa samaynaysaa. waxaad tegeysaa uniswapkaada refresh leedahay. refresh markaa dhahdid, waxaa soo qaadaysaa, halkaasaad ku dhufanaysaa dhakada uniswap. lacagtaa rabti inaad iska selgaraysa aad madaxa kaga dhufanaysaa. markaad kaga dhufatid, ayadaa marka kor geynaysaa. koraa geynaya, markaa kor geysid maxia leedahay. wixii kugu jiroo dhan iga selgaree. max markaa dhahday same process maraysa. waxaa isticmaalaysaa uniswap the same way aan u isticmaalno jupiter markii aan joogno phantom wallet oo lacagaha ku dhisan solana. waa isku mid kiile, wax ka duwan ma lahan. markaa max dhahdi preview leedahay, kadibna approve leedahay. messageka kusoo baxay approve gareey. lacagtii bandin ay leedahay, kadib way kuusoo bixaysaa qaybtii labaad. kadibna wallah lacagtaada waa haysataa. kadib waxaa kuusoo haraayo lacagtii dhan way kaa baxday. lacagihii dhan waxay u wareegaysaa refresh haddaan dhaho. deg 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 sida lacagta looga sameeyo cripto. halkan haddaa ku dhufto connect wallet aa leeyahay, metamaskiga ku xiranaa. markaa ku xirto, waxaa ii soo baxaayo, waxaa haysto waa $110 iyo ethereum yar. sidee marka 110kaas base exchangegaada u geysan kartaa? okay, waxaad tegi kartaa walletkaada, metamaska furaysaa. markaa furtid, waxaa kusoo bixi doona activityda aad samaysay, waa wareejinay tokenada ka dhigane. tokenada markaa ka dhigatid, bnb ma haystid, lacagii kale oo iska selgaraysay, ethereum aa haysataa oo base ah. marka ethereum basekaas aa haystid, sidee marka exchangegaada u geyn kartaa? waxaad u geyn kartaa dhakadaad kaga dhufanaysaa. markaad kaga dhufatid, sandi aa leedahay. sandi markaa dhahdid, adresska aad gelinaysid ayaa halkaas ku dhufanaysaa. okay, midaa sameynaa marka. waxaad tegayaa binance. haddii binance aa isticmaalaysid, waxaa leeyahay tusaalo kaleeto deposit. deposit markaa dhaho ama receive cartont waad tigi kartaa. hadda binance haddaa inta kugu dhufto, inta haddaa kugu dhufto, so homekaagaa joogtaa. deposit aa leeyahay. deposit markaa dhaho, waxaad dooranaysaa cripto. cripto dooranaysaa. cripto markaa dooratid, inta waxaa kusoo bixin doonta lacagta aa rabtid oo kale. tusaalo kaleeto waxaa u baahan tahay ethereum oo kaleeto. ethereum markaa dooratid, networkaad dooranaysaa. base aa leedahay. base markaa dooratid, adresskaaga base waa kasaa. waa markii aad joogtid binance. coinbase markaa joogtid, same thing aa sameynay. waxaa leedahay ethereum aad dooranaysaa, ether ku dhufanaya. eth markaa ku dhufatid, receive aa leedahay. receive markaa dhahdid, wuxuu ku weydiinayaa networka. ethereum ma dooranaysid, waxaa leedahay base. base aa dooranay. adressoo ku siinaya. adresskaasaa soo koobi gareynay. waxaad tegeysaa, anaga hadda waxaa rabnaa inaan coinbase ku shubno oo aan ka saarno, oo aan instead of binance. waa isku mid kale. binance markaa joogto ethereum aa dooranay, networka waxaa ka dhigaysaa base, adressoo ku siinaa. same thing with coinbase. halkaasaad tegeysaa, adresska intaa halkaasaa gelinaysaa. copy paste aa leedahay. copy paste markaa dhahdid, waxa kuu soo baxay ayaa halkaas ka arkaysa. waxaa leedahay maxi oo ah kulli. maxi markaa dhahdid, kulli waaye. meesha aad adresskaaga uu kasoo tagayo, meesha u socdo iska hubi. marka meesha u socdo iska hubi. waxaa u dambeyso 34a 0x 34a 0x 34a 7a aa ka horeyso. intan maxaa ka horeyso 7a. sax waaye, saxuu ku yahay. waa qaade awow. waxaa leedahay maxi dheh.
max markaa dhahdid continue aa leedahay, continue markaa dhahdid haddana continue aa leedahay. waxyaraa sugaysaa marka, waxyar markaa sugtid lami refresh, waladkaygu ku noqo, awow waladkayga markaa ku noqdo failo dhahay awana si wax ka qaldamay. Okay, transaction bill extra fees. Oh, okay, waxaa sameeyey oolaa dhahay. So waxaan sameynayaa token dheh, wax yaraa ku reebaya max intaa dhihi lahay. So waxaan sameynaya waxay tahay max intaa dhihi lahay, let me go with waxaa leeyahay 110 aa leeyahay, wax yaraa ku reebaya oo fiiga ah. So addresskiyaa gelinaa, wax yaraa ku reebaya. So waxaa leeyahay 100 iyo waxaa leeyahay 1 second, kala wareeji dollar ka dhig 100 iyo waxaa leeyahay 14, 114 dollar aa leeyahay. 114 markaa dhaho dhagaa leeyahay continue, wax yaroo fee ah. So alert network fee, okay, high demand, okay, pricekii baa yaro badan. So waxaa leeyahay okay, let me send addresskiyaa gelinaya, kadib markaan geliyo kadib waxaa leeyahay dollar ka dhig $100, lasii $100, $100 maadaama walletka aan kasoo direyno. Okay, now is good. So sintiyaal yaroo goostay, wax yaroo ku reebay, $100 aan dirnay, sendi dheh. wax yaraa sugeynaa, speed up ma rabno, just confirm. Okay, $100 way baxday, $21 ku haray. maxaa yeelay eth oo base ah $18 igu hartay, wax yariisa ka go'ay, because wax yariiska wax ka go'an ethereum. So marka 100kii wuu baxay, wuu tegey, $21 noogu soo hartay. dag haddaan dhaho inta haddaan ku dhufto homekii tagaa, homekii markaa tago refresh aa leeyahay, refresh markaa dhaho assetyadeedaan tegayaa, assetskaan tegi doonaa, waxaan sugaynaa wax yar kadib inay halkani soo gasho. intay lacagta ka soo galayso oo exchangegaada loogu shubto, waxaan sii fiirinayaa newsyada maxaa dhacay. waxaa kaloo ka faa'iidi kartaan horta dadka casharada raba inay kasoo qayb galaan, please kaala imaada waxbarta. ani casharada waan bixiyaa, howsha way socotaa. qofkii u baahan inuu wax barto, maxamed la xiriir. waxyaabaha kale iskuul kusoo daran waxaa ka mid ah, yarkan waa wici kartaa nambarka Soomaali WhatsApp ahaan ama call caadi ah. haddii aad rabtid USDC inaad iskaga diiwaangelisid fiiga iskuulka, USDC waa ku diiwaangelin kartaa. receive aa leedahay USDC oo Solana ku dhisan ama base ku dhisan, waa iska diiwaangelin kartaa. badanaa Soomaalida Solana u fudud oo malaynaa, Ethereumna waqti oo qaataa. laakiin Ethereum haddaa rabtiin USDT waay, markaas ku qaldina. USDT na waa isku diiwaangelin kartaa oo Ethereum ah, iyo USDC oo networkya kala duwan. badanaan Soomaalida Solana isticmaalaan, labadaas optionbo iskuulka waa kusoo darnay, ama yarka la xiriir kaala waxbaro. cilmigan wuxuu ku fiican yahay, lacagtii aan fiirinay inaa imaatay. cilmiga waxyaabo ku fiican waxaa ka mid ah, waxaa yaraanaya khasaarahaada, qofka khasaarihiisa yaraanaya number 1. number 2 assetska tagaa waa kana, I hope inay soo gashay. let me refresh aa leeyahay, I think lacagta hadda way imaatay by this time. waa kana $100 way soo gashay oo Ethereum ah. Ethereum ahaanay u taalaa. hadhow markaad diraayane Ethereum markaa ku dhufto sandi dhahayo, tusaalo kale aan rabo inaan u dirsado MetaMask-gayga oo halkii aan ku soo celiyo, haddii aan rabo MetaMask-ka tagaa, addresskayga soo copy gareynaa, waa kana. markii aan diraayo addresska aawma soo copy gareeyey, MetaMask-ka tagay. markii aan diraayo waxaa leeyahay meesha buy iyo sell ma dhahayo iyo comfort, sandi aa dhahaa. sandi markaa dhaho addresska gelinaa, addresska markaa geliyo kadib addresskaasi waxaan u bedeli doonaa networka base ka dhigaa. markaas base ka dhigay, you see, baashaa la fahm. casharadana waa muhiim qofka inuu barto. waxyaabaha anaga naga faa'iideysa waxaa ka mid ah, meme coinkin waa baranaysaa. maalin libada xataa dadka waxay ku dawladaan ustaadii, axiom aan isticmaalnaa, mise neobulexka, labaduba way fiican tahay. neobulex waa isticmaali kartaa, qaybta axiomka oo hyperka ah, qaybta hyper waa isticmaali kartaa. waxyaabaha oo badanaa ku fiican yahay bulexka waxaa waa meme coinka. haddii aad ku dhufatid xogta inta ugu badan waa helaysaa, keliya dee dadka top traderska xogtooda inaa heshid, iyo dadka maxaan dhahaa holderska ah. tusaalo kaleeto dadka traderska lacagta geliyeen iyo intay kala baxeen. tusaalo kale qof walbo oo top trader ah wuxuu ka faa'iiday iyo wuxuu geliyey. qofkan $100 geliyey, $100 kala baxay, $900 ka faa'iiday. xogtana helaysaan
oo aadan ka helaynin axiomka, laakiin inta ugu badan wax walba axiom ay taala, so labadaba waa idin barayna anaga. So marka qofka markuu coinka halkaasaad kaga soo shuban kartaa waladyada. Inta ugu badanna lacagta waxaa laga sameeya waxaa waa waladyada, oo qofka inuu ku shaqaysto metamask, networkyada kala duwan inaad barataan. Qofka hadduu baranayo ethereum, linear oo base hadda aan joognay, I think waxaan humanaynaa qofkii Soomaali ugu horreeyay base xataa cashira ka duubayo waxaas, xataa waa baranaysaa wax kaloo ka fara badan. Even qofkii Soomaali ugu horreeyay Poly Market, hadda Poly Market ka xataa waan sameynay. Qofkii Soomaali ugu horreeyay oo si toos ah aad uga baranaysaa different blockchain, lacagaha ku dhisan linear, lacagaha ku dhisan adigoo walletkaada isticmaalaya base, lacagaha ku dhisan avalanche, lacagaha ku dhisan Poly, kulligood networkska kala duwan walletkaaga inaad isticmaashid, sida hadda Phantomka, MetaMask, Sui wallet, Trust wallet inaad ku shaqaystid. Okay, Jupiterna sidoo kaleeto Phantomkaada inaad ku xiratid. qaybtaas waa kasoo gudubnay. En, xogta ugu dambeysa marka lacagta waa kana wayna soo gaartay, waa kusoo shubnay. Aan imaana markee lacagaha kaloo fursada leh oo maanta dadka isha ku hayaan. Lacaga badan ee dadka isha ku hayaan waxaa ka mid ah Helium oo kaleeto, DCA waa ku samayn kartaan long term investment. Axios Network sidoo kale long term investment waa ku samayn kartaan. Jasmine Coin long term investment, maanta bil wax kama helaysa laakiin long term way ku fiican tahay. And that's it, lacagaha long termka. Iyo Propi waan ka hadalnay, haddaa xasuustaan lacagaha RWA ga ka mid tahay long term investment. Propi fursadaa taalo, opportunity badan ka faa'iidayso. Number one, Propi mustaqbal ay leedahay, long term investment. Jasmine Coin long term investment. Helium, DCA long term investment. Iyo Axios Network long term investment. Short term waa kuwii hadda aan ka hadlaynay. iyo waxaa kaloo soo baxay newsyo fara badan hadday noqoto SEC inay daabici doonto, the Fed inay daabici doonto lacagtii, money printing la samayn doono, interest rate hoos loo dhigi doono, Michael Saylor inuu faa'iido badan sameeyey, that's a good news. Dadka inay BTC badan iibsanayaan, ama yacni team Trump family ay iibsadeen lacagta C la dhaho ama C. That's a good news. xataa lacagtaasi DCA waa ku samayn kartaa, long term investment u geli kartaa, opportunity weyn ka jirto. Sidoo kale CC oo wadamo badan adduunka ka dhiirigelinaya BTC iyo crypto inuu sharciyiinta kala shaqeeyo wadamo badan sida hadda Pakistan iyo wadamo fara badan. Soomaaliya anaaba u joogo oo hadda wax idin baraayo, iskuulka idin sameynay waxyaabo badan iskuulka soo socdo. Iskuulka waa in lacag aa samaysay weekly iyo monthly iyo daily, ma fahantay? Short term investment, long term investment. lana xiriira yarkani wallahi maxamed, la xiriira wax badan aa faa'iidaysaan. Midda kale lacagii hadda aan ka hadlayay tusaalo kaleeto hadda waa ka baxay. Lacagii hadda aan ka hadlayay lacag ka mid ah la soo kala soo qaad, tusaalo kaleeto wan lacag oo ka mid ah maanta haddii aan rabno inaan galno kale ama ka faa'iidno la soo kale hadda lacagta ugu dambeysa aan fiirnay mined oo kale whatever iskuulkaas ka diiwaan gelisay, tusaalo kale faa'iidada one day ku soo noqonaysa. La soo kaleeto fiiga $99 $1,000 waxaa gelisay lacagtan oo nadiifka anaga kula talin maalgashaan ku dhana kunkaga hadduu kun kale ku noqdo faa'iidada naga heshaa ka badan. Cilmina waa hesha, wax waa baratay, $1,000 ali imaatana 2,000 ay ku noqotay, $900 extra dheeraada faa'iide. So markii laga reebo dee boqolka iska diiwaan gelisay tusaalo kale ka soo qaad $99. $900 extra dheeraad waa faa'iiday, mar walbana waa faa'iidaysa oo ardaya tahay, mar walba waxaa lagu wadaagayaa khasaaraha yaraan, cilmina waa faa'iiday. So 20 at the end of the day win adiga kusoo raacday wixii guul ah. maxaa kale baalkii CEO-ga Coinbase wuxuu dhahay Bitcoin waxay noqon doontaa multi-million dollar coinkiiba. Haddana wuxuu dhahay CEO-ga wuxuu rajeynayaa wadamada badan ee G20 laisla dhaho inay establish gareyn doonaan Bitcoin Strategic Reserve. That's a good news. waa CEO-ga Coinbase. Coinbase waa midda hadda aan isticmaalayn exchange-ga caalamka ugu weyn, lacagteeda ugu badan ay ku jirto. akoonkan waa akoonka cashiradan ku duubayay, bangiga ku xiran. tusaalo kaleeto hadda like limitkii u socday hadda 7,000 oo kusoo haray, limitka 7,000. Coinbase waa lacagteeda meesha ugu badan. hal mar limitkii wuxuu iska noqonaa maalinkiisa u isticmaalayo marmar way xirayaan. So marka I love Coinbase. CEO Coinbase wax badan og yahay and they know so many things. asaga iyo CC wax badan og yihiin. G20 hadday soo galaan wadamada G20 is crazy. Bitcoin 1 million banaanka waay.
even xataa hadda bully market haddaan tagno kriptada haddaan dhahno dad badanaa aaminsan 2025 2025 BTC inay gaari doonto 1 milyan dad baa aaminsan fiiriya 2025 boqolkiiba afar aaminsan boqolkiiba sagaal waxay aaminsan yihiin BTC inay gaari doonto 250 haddaa challengegaas ka qayb gasha xataa $100 iskaga turtid kunkaaga dooro banaanka waay haddaad aaminsan tahay BTC inay gaari doonto lasoo kale 1 milyan labadaada kuna helaysaa tusaalaha uun kasoo qaad soo marka kaagama daraysa challenge aad ka qayb gasho waaye haddii aad wax badan ogtaa ani already waan la socdaa BTC 2025 meesha gaarayso zoomkaana ku shakaysanayna insha allah maxaa kale uu muuqaalku buusinaya China iyo Russia oo si hoos u iibsanayo dadka ay dhahayaan BTC sidoo kale one more last time madaxweynaha Trump oo la kulmayo madaxweynaha Mr. President El Salvador oo Bitcoin aaminsan wuxuu u bixiyay Mr. B sidoo kaleeto miimkooyinda marwalba ka xasan especially this week oo lasoo dhaafay and that's it guys Binance markaad joogtid lacag markaa kusoo shubanaysid wogaaga maadaama anagana awooqyo kala duwan isticmaalayno halaga hay markaa withdraw samaynaysid sidoo kale nawooqyada isha ku hay maxaa kaleeto marka ugu dambeeyo hadda 82,000 BTC maraysaa and it's just nothing beri marka 250 tagto qeyr baa idinkaga tegay meel walbaa joogtaan wixii su-aalaha yarkaas la xiriira and I hope the exchange si lacag loogala baxan inaad taqaanaan ethereum-kaaga inaad automatically aad bangigaada ku shuban kartid I hope taasna inaad taqaanaan qeyr baa idinkaga tegay meel walbaa dunida joogtaan asalaamu calaykum wixii su-aalaha yarkaas la xiriira haddii ardayda aad ka mid tahayne waa inuu iskuulka insha allah waa inuu casharada haddaada ka mid ahayne kasoo mid noqo